cabsida dagaal ka dhex qarxa Ruushka iyo Mareykanka la iskuna adeegsado nuclear ayaa saaka dunida ka taagan kadib markii Trump uu amray in la diyaariyo 2 markab oo nuclear ka xambaara taasi oo jawaab u ah waxa uu ugu yeeray hadallo nacasnimo ah oo ka soo yeeray mas'uul Ruush ah. Abaanduulaha ciidamada Israa'iil oo ku hanjabay inuu iscasilayo isaga oo shaki ka qaba in dusha laga saaro guuldarrada dagaalka Gaza ee Israa'iil qabsaday. Taliyaha ayaa wajahaya dhaleecayn uga imaanaysa xubno ka mid ah wasiirada xukuumadda Netanyahu. Hamas oo Trump ku tilmaamtay beenlow indhaha Israa'iil oo kaliya wax ku eegaya isla markaana aan ka daalayn dhaleecaynta uu jeedinayo kooxda. Erdogan oo ku sifeeyay waxa ka socda Gaza in ay ka sii daran yihiin wixii ka dhacay xiriirihii Naasiga isagoo oo jeediyay baaqa. Kala bar dadka Israa'iiliyiinta oo ka cabsi qaba inay dibadda u safraan waa maxay sababta xog baan idinkaga haynaa arrintan. Putin oo xaqiijiyay horumarka ciidankiisu ka gaarayo Ukraine iyo Zelensky oo ku baaqay wadahadal toos ah. iyo warbixin soo baxday oo ay sheegaysaa in 5 meelood meel dadka Afrikaanka ah ay soo wajahday gaajo sanadkii 2024 hadda ku soo beer waxaad ku maasan tahay daawashada barnaamijka. saaka waxaynu ku bilaabeynaa xiisadda Ruushka iyo Mareykanka u dhaxaysa iyadoo ay sii xumaanayso xiisaddan ee isla markaana laga cabsi qabo in xaaladdu ay faraha ka sii baxdo ayaa waxa ay soo taraya hadallada cagajugleynta iyo kala hadalka ah ee ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasi oo saacado gudahooda jeediyay 2 war oo aad u culus. Trump oo la filayo inuu Ruushka saaro cunaqabatayn dheeri ah ayaa dhanka kale waxa uu qiray in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay nin si weyn ugu xeel dheer la tacaalida cunaqabataynta. Trump oo maanta la hadlay telefishinka Newsmax ayaa waxa uu sheegay in Putin uu yahay nin adag aan sahlanayn haddana waxa uu carabka ku adkeeyay in ay horey u yeesheen wadahadallo wanaagsan oo laga yaabo inay horseedi lahaayeen dhamaadka dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya balse xaaladdu ay isbedeshay kadib markii Putin uu duqeymo joogto ah roobka uga dhigay Ukraine. laakiin warka ugu culus ee Trump ayaa waxa uu xalay ku dhawaaqay in uu amray in laga 2 markab oo gujisyada badda quusa ah oo nuclear xambaarsan la geeyo meelaha la xiriirta xiisadda u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka kadib hadallo uu ku tilmaamay kuwa xasarad huwan oo ka soo yeeray mas'uul Ruush ah. Trump ayaa yiri marka la tixgeliyo hadalladii aadka xasaradaha u ahaa ee ka ujeediyay madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitry Medvedev waxaan amray in 2 maraakiibta nuclear-ka xambaara la geeyo meelaha ku habboon haddii ay dhacdo in hadalladaasi nacasnimada iyo kicinta leh ay dhaafaan hadal oo kaliya isla markaana ay ficil isku bedelaan. Goorsii horeysay Medvedev oo ay hadda ah ku-xigeenka golaha amniga qaranka ee Ruushka waxa uu baraha bulshada ku qoray in waqtiga Trump uu qabtay Moscow si uu dagaalka Ukraine ay u joojiso ay tahay hanjabaad iyo tallaabo dagaal oo ku socota Ruushka. waa tahay haddaba iyada oo xaaladahani ay taagan yihiin ayaa dhanka kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay horumar ka sameynayaan furimaha hore ee dagaalka ee bariga Ukraine. Putin ayaa saxaafadda u sheegay xilli uu la kulmayay madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko in cadowgiisu ay horey u sheegeen in ay doonayaan in Ruushka si istiraatiiji ah loo jabiyo balse maanta oo kaliya ay ka hadlayaan sidii loo joojin lahaa horumarka Ruushka uu ka sameynayo jiidaha hore ee colaadda. waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen magaalada Kazivir oo ah xarun muhiim ah oo military kana tirsan gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. waxa intaasi ku daray hoggaanka Ukraine ma fahamsana waxa ka dhacaya jiidaha hore sababtoo ah waxay beeniyeen in Kazivir la xoreeyay. madaxweynaha Ukraine waxa uu beeniyay in Kazivir la qabsaday waxaana uu sheegay in warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ay shaacisay ay ku sheegtay in la wareegtay magaaladani ay tahay mid marin habaabin ah. waxaana uu sheegay in dagaalka ugu culus ee Donetsk uu hadda ka socdo hareeraha magaalada Pokrovsk. geesta kalena Putin waxa uu ugu baaqay nabad iyo cadaalad waarta in la gaaro oo ku saleysan saldhig adag oo labada dhinacba ah waa Ruushka iyo Ukraine ay ku qanci karaan isla markaana xaqiijisa xuquuqda dhammaan dhinacyada ay u baahan yihiin ama leeyihiin. kadib hadallada Putin
madaxweynaha Ukraine ee Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa X ama Twitter-ka waxa uu ku qoray haddii ay yihiin calaamado dhab ah oo muujinaya rabitaan dhab ah oo lagu dhameynayo dagaalka waliba si sharaf leh in loogu helo nabad waarta. Ukraine waxay markasta xaqiijinaysaa diyaar u ahaanshaha kulan heer hoggaan ah mar waliba. waa tahay markana aynu xagga Afrika u weecanno warbixin cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in shameelood meel dadka Afrika ama Afrikaanka ah ay soo wajahday gaajo daran sanadii 2024 war arrimahani ku aadan waxa inoo haya oo soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise. natiijooyinka warbixinta qaramada midoobay ee sugnaanta cuntada iyo nafaqada ee adduunka sanadka 2025 ayaa shaaca ka qaaday in qaaradda Afrika ay weli tahay meesha ugu daran adduunka ama gobolka ugu daran ee dadka ay ku saameeyeen gaajada sanadkii 2024. warbixintan oo ay soo saareen 5 hay'adood oo qaas ah oo hoostaga qaramada midoobay ayaa diiwaan geliyay in dadka Afrikaanka ah ee wajahaya gaajadu ay dhaafeen 20% sanadkii 2024 taasi oo ka dhigaysa 307 milyan oo qof. tirakoobkan ayaa muujinaya in dadka Afrikaanka ah ee la daalaa-dhacaya gaajadu ay yihiin ku dhawaad kala bar dadka caalamka oo dhan la ildaran gaajada sanadkii 2024 kuwaas oo tiradoodu ay gaaraysay 673 milyan oo qof. sida lagu xusay warbixinta boqolkiiba dadka adduunka ee la kulmay gaajada ayaa hoos u dhacday 8.2% sanadkii 2024 marka la barbar dhigo 8.5% sanadkii 2023 iyo sidoo kale 8.7 sanadkii 2022. isbedelka hoos u dhaca ah ayaa lagu qiyaasay inuu u dhigmayo 15 milyan oo qof marka la barbar dhigo sanadkii 2023 halka 22 milyan ay dhintay marka la barbar dhigo sanadkii 2022. inkasta oo heerka gaajada caalamku uu hoos u dhacay haddana gaajadu waxa ay kor u sii korortay inta badan Afrika iyo sidoo kale galbeedka Asia iyada oo heerkaas gaajaduna ay gaartay 12.7% taasi oo dhiganta in ka badan 39 milyan oo qof. warbixintu waxay sidoo kale xustay in inkasta hoos u dhacan yahay mid horumar muujinaya haddana tirakoobyadu weli ay sareeyaan marka loo eego xilligii ka horeeyay COVID-19 waxa hoos u dhacay xooliga yar ee sugnaanta cuntada iyada oo loo aaneynayo inuu yahay sicir bararka iyo sidoo kale qiimaha cuntada oo kor u kacay sanadkii la soo dhaafay. warbixintu waxay saadaalisay in 512 milyan oo qof ay ku sii sugnaan doonaan xaalad gaajo ah marka la gaaro sanadka 2030 ku dhawaad 60% dadkaasi waxay noqon doonaan Afrikaan oo kaliya taasi oo qaaradda ku sii qaadaysa culays aad u xoog badan si ay u gaarto hadafka gaajo la'aanta oo ah ujeedada labaad ee hadafyada waara. Yaxya Ciise, HBN Online TV. mahadsanid Yaxya. waa tahay daawadayaal waxayna u soo foolay wararkii ugu dambeeyay ee Gaza abaanduulaha ciidamada Israa'iil oo ku hanjabay inuu iscasilayo Hamas oo Trump ku tilmaamtay beenlow indhaha Israa'iil oo kaliya wax ku eego iyo waliba qodobo kale oo subaxnimadan si toos ah kaga imaanaya stuudiyaha labaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha bulshada ee kala duwan sida Facebook, YouTube, Twitter iyo waliba Telegram-ka. warbixino qoraal ah faalooyin iyo waliba macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan oo aad ka dheehan kartaan barta aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirno HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa tahay markan aynu xagga Gaza u weecanno telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in taliyaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir uu ku hanjabay inuu iscasili doono sabab la xiriira khilaafka u dhaxeeya hoggaanka siyaasadda iyo kan amniga. xaaladdu xiisaddu waxay gaartay heerkii ugu sarreeyay ahna taliyuhu uu ku baaqay in hoggaanka siyaasadeed ay gaaraan go'aano cad oo qeexaya mowqifka xukuumadda Israa'iil. Zamir ayaa la sheegay inuu aaminsan yahay in xukuumadda Netanyahu ay diyaarin doonto ama haatan ay qorsheynayso feerar lagu eedeynayo sida midkii lagu sameeyay taliyihii hore ee ciidamada Israa'iil Herzi Halevi si loogu eedeeyo inuu ka mas'uul yahay in aan la gaarin yoolalkii Gaza laga lahaa. dhanka jiidaha hore ee dagaalka hadii aynu eegno kooxda Al-Qassam ayaa baahisay muuqaalo muujinaya qarxinta miinooyin dhulka la dhigay oo lala beegsaday baabuurta ciidamada gumeysiga Israa'iil kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka Al-Batan Al-Samin ee koonfurta galbeed ee Khan Yunis ku yaala oo koonfurta marinka Gaza ah. muuqaalaha kale ayaa sidoo kale la baahiyay kuwaasi oo muujinaya duqeymo lagu beegsaday saldhigyo iyo ciidan Israa'iili ah oo ku sugnaa jiidaha duulaanka ee Khan Yunis
iyadoo la isticmaalayay gantaalo iyo sidoo kale martaalo. dhanka diblomaasiyadda ee arrimaha Gaza aynu eegno, madaxweynaha Finland Alexander Stubb ayaa sheegay in isbeddelka ku wajahan aqoonsiga dowladda Falastiini ah uu sii xoogeysanayo kadib hadallada ka soo yeeray Faransiiska, Britain iyo Canada. waxa intaasi ku daray in aqoonsiga dowladda Falastiini ah uu yahay go'aan madaxweyne balse uu u baahan yahay soo jeedin ka timaada golaha wasiirada ee dalka Finland haddii taasi la helana uu ansixin doono. isla wararka Gaza, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in duulaanka Israa'iil ee Gaza uu yahay mid uusan xitaa la mid ahayn ama mid aan la mid ahayn wixii ka dhacay xiriirka Naasiga, isagoo xusay in dambiyadaasi ay si toos ah uga dhacayaan adduunka casriga ahna uu daawanayo iyadoo aan wax tallaabo ah laga qaadin. Erdogan waxa uu sidoo kale sheegay in beesha caalamka ay saaran tahay mas'uuliyad akhlaaqeed iyo mid bini'aadantinimo si loo gaaro xabajoojin degdeg ah oo ka dhacda ee Gaza loona suurtageliyo gaarsiinta gargaarka bini'aadantinimo ee dadka rayidka ah ee Gaza ku go'doonsan. dhanka Washington ee hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa warqad u diray madaxweyne Donald Trump iyaga oo ku yiri warqadda waxaan u baaqaynaa in si degdeg ah dib loogu bilaabo wada hadallada si loo joojiyo dagaalka Gaza ka socda, dagaalkaasi oo sababay musiibo bini'aadantinimo oo qoto dheer iyo xasilooni darro juqraafiyadeed. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri waxaan aaminsanahay in yoolalkii asaasiga ahaa ee dagaalka Gaza horey loo gaaray. sii socoshada dagaalka Gazana waxay khatar u tahay kordhinta xiisadaha gobolka iyo musiibo bini'aadantinimo. dadka reer Gaza waxay wajahayaan gaajo waxayna si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar ballaaran. waxaan ku baaqaynaa in xabad joojin rasmi ah ee laga dhigo hadafka koowaad ee diblomaasiyadda. waxaan diidnay qorshe kasta oo lagu barakicinayo si qasab ahna dadka reer Falastiin ee Gaza. tani waa fursadaada si aad u fuliso ballanqaadkaagii ahaa in la joojiyo dagaalka Gaza lana soo celiyo xasiloonida halkaasi ka jirtay. markana xagga Israa'iil aynu u jaleecno waxa soo baxay war weyn oo ku aadan saameynta dagaalka oo ku yeeshay dadka Israa'iiliyiinta ah kuwaasi oo cabsi ka qaba in dibadaha ay u socdaal tagaan ama u safraan. ra'yi ururin uu sameeyay telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxay muujisay in 56% dadka Israa'iiliyiinta ah ay ka baqayaan inay u safraan dibadda sabab la xiriira dhaleecaynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Israa'iil. aynu ku laabano arrimaha Gaza, xarakada Xamaas ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uusan ka daalaynin ku celcelinta eedeymaha iyo been abuurka Israa'iil ee ku saabsan in Xamaas ay boobto gargaarka, iyadoo uu carabka ku adkeysay inaysan iyaduna ka daalaynin diidmada iyo beeninta arrimahaasi ama eedeymahaasi loo jeedinayo. xarakadu waxay sheegtay in eedeymaha Trump ay yihiin kuwo been ah oo hore u beeniyeen ama u beenisay qaramada midoobay iyo baaritaan gudaha ah oo ay sameysay hay'adda USAID ee Mareykanka leedahay. Xamaas waxay sidoo kale tilmaamtay in gaajada iyo dabargoynta ka socota Gaza ay si toos ah uga dhalatay siyaasadda gumeysiga oo Mareykanku uu taageerayo. bayaan ay soo saartay, Xamaas waxay ugu baaqday Washington inay cambaarayso godoominta Gaza ka jirta, joojiso gaajaysiinta shacabka, kana fogaato u helinta Israa'iil, isla markaana aysan ku eegin xaaladda oo kaliya indhaha Israa'iil. xarakadu waxa ay sidoo kale ku baaqday in la hubiyo in gargaarka la marsiiyo qaramada midoobay halkii laga marin lahaa hay'adaha bini'aadantinimo ee Gaza ku sugan. dhinaca kale, Xamaas waxay ku baaqday in hadda soo socota loo asteeyo maalin qaran, maalin carbeed iyo mid islaami ah iyo sidoo kale mid caalami ah oo lagu garab istaagayo Gaza, Qudus, Al-Aqsa iyo maxaabiista. iyadoo dagaalka dabargoynta ah ee gaajaysiinta ah ee lagu hayo dadka reer Gazana uu wali yahay mid halkiisii ka sii socda. xarakadu waxay sidoo kale ugu baaqday dadka xorta ah ee dunida inay kordhiyaan kacdoonka shacabka maalmaha Jimcaha, Sabtida iyo Axadda ee toddobaad kasta ilaa la joojiyo gardarrada iyo macaluusha ka jirta Gaza ee go'doonsan. Xamaas waxay ku adkaysay in shacabka ku sugan marinka Gaza wali ay wajahayaan dagaal dabargoyn ah oo ballaaran kaasi oo gaajo loo isticmaalayo sidii hub dagaal oo lagu jebinayo adkeysigooda dadka reer Gaza. Khamiistii, Xamaas waxay ku xaqiijisay inay diyaar u tahay ama diyaar u ahaanshaheeda ku aadan in si degdeg ah